kitaabka quraanka ama lacagta nin taajir ahaa ninkani ma lahayn awlaad iyo caruur intaba balse waxaa jirtay shaqaale aad u tiro badan oo ka shaqeynaya gurigiisa habeen ayuu casho isugu yeeray nin walbana wuxuu hurtiisa dhigay kitaab quraan ah iyo xoogaa lacag ah waxa uuna weydiiyay qof walba inuu doorto labadooda mid waxa uu ku bilaabay ninkii waardiye ahaa inuu labadooda mid doorto balse waardiyihii waxa uu doortay lacagta maxaa yeelay waxa uu dhahay anigu ma aqaano qaabka quraanka loo akhriyo sidaas darteed waxaan dooranayaa lacagta oo aad iyo anfacaysa waxa uu ku xijiyay ninkii uu qaabishanaa beeraha waxa uuna weydiiyay inuu labadooda mid doorto balse cudurdaar ayuu sheegtay waxa uuna dhahay aniga xaaskayga ayaa iga jiran haddii ay taas jiri lahayn waxaan dooran lahaa quraanka sidaas darteed hadda lacagta ayaa aad iyo anfacaysa lacagta ayaanan doortay waxa uu ku xijiyay ninkii cunto kariyaha ahaa waxa uuna dhahay ninkii aniga aad ayaan jeclahay wax akhrinta balse hawsheedu aad u badan ma awoodo inaan wax badan akhriyo sidaas darteed lacagta ayaan dooranayaa iyada ayaan anfacaysa waxa uu ku xijiyay ninkii uu qaabilsanaa xayawaanaadka wuxuuna ogaa taajirku ninkan inuu zaid faqiir u yahay sidaas darteed waxa uu ku yiri anigu waxaan hubaa inaad qaadan doonto lacagta maxaa yeelay faqiirnimada zaidka iyo kobaha ka go'go'ay darteed ayaad u qaadanaysaa balse ninkii waxa uu ku jawaabay anigu waxaan dooranayaa kitaabka quraanka maxaa yeelay hooyaday ayaa ugu tiri kalimaad oo Ilaahay xaqiisa ka ahaatay ayaa wax walba dinada saaran ka wanaagsan ninkii dhalinyarada ahaa kutubkii ayuu qaatay markii uu kala furay labada dhinac waxa uu ku arkay lacag tii loo ballan qaadayay 10 ujibaarkeed dhinac kalena waxa uu ku arkay warqad saxiix ah oo ah inuu dhaxli doono ninka taajirka ah markaas kadib ninkii taajirka waxa uu ka dhahay ogaada qofkii xagga Ilaahay maladu ka malaysanay wanaajiya adduunyo aakhiraba ma hoogayo الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا